Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay kusoo dhawaada channelkan fadlan hanaga ilaawina like-ta iyo share-ta iyo subscribe-ta dhammaantiin waxaan leenahay kusoo dhawaada haddii aynu fiidiyogan u guda galno waxa dhawaanahanba la isla hadlayay fanaanka loo yaqaano Socdaal oo isagoo heeso aanan fanaaniintii hore aan qaadi jirin qaada oo heesaan hadda socda raabka loo yaqaano ayaa dhawaan wuxuu sameeyay adoo heestii saddexaad buu imika waday oo Puntland u qaaday haddaba sidii baraha bulshada dhex socotay maalmahanba waxaa la soo baahiyey fanaanka oo nabro loo geystay isagoo muuqaalo fanaankaas oo nabro loo geystay kaasi oo markii dambe fanaankaasi uu sheegay inuu aanu wax nabro loo geysan balse dad horumarkiisa ka xun ay Photoshop ka sameeyeen balse hadda ayaa waxa soo baxday oo la ogaaday oo runtii noqotay in aanu fanaankaasi dhaawacaasi aanay dad u geysan balse isagoo markii showgii Faadumiin ay Muqdisho ku qabanaysay uu dhamaaday isagoo gurigiisa ku sii socda ay bajaaj gawaaridan tigta loo yaqaana ay la dhacday taasi oo halkaasi uu ka soo gaadhay fanaanka nabro dhinaca wejiga gaar ahaan qaybta isha agteeda iyadoo markii dambe maasha Allah fanaankaasi laga daweeyay ugu dambeynna waxaa la ogaaday inuu dhaawacaasi ay u geysatay bajaajtaasi ama tigtaasi kaasi oo fanaanka markaa laga been abuuray oo la yidhi waxaa dhaawaca u geystay dad isaga kasoo horjeeday fankiisa maadaama ay dad badan ay dhaliilaan fanka ay dadkaasina markaa ku sheegaan inuu fankii uu ka dhigay ama sharafkii iyo maqaamkii uu fanka Soomaaliyeed lahaa uu fanaankaasi kubsaday balse ugu dambeyn waxaa la ogaaday markaasi inuu bajaajtaasi uu ka dhacay fadlan channelka subscribe-ta noogu qabta waad mahadsantihiin aad ayaan idin salaaminaa intaas